وإذا السلام أصحاب تقاليقا حرجينا إنا إي عافماد قبتين لمانتينا maanta videogan waxa ugu talagalay inaan kaga falceliyo arin xoogaa itaabata ee xanuujisay oo aan ka fiirsaday gabar walaashay channelkeeda gabadhaas oo ah marna fanaanad marna maxaa la youtuber waa qaaliladan oo lagu dhahay yani waxa tahay ma dhasho yani waxa tahay qof aan ilmo dhaleenin arintaas aad ugu carooday arintaas walaa waa ka xumaaday yani qalbigeygana aad u taabata maxaa yeelay qof dhan ina qalbigiisa sas loo dhaawaco waa arin aad qalad ah marka ani waxa dhihi karaa qofka oo waxaas ku dhahay gabadhaas oo ma dhashid ku dhahay yani qofkaas waxa dhihi karaa waa qof aan damiir lahayn waa qof aan iimaan lahayn waa qof oo yani diintiisa daciifto yani xaq diinta aan ku fiicneen waa qof xaasid ah waa qof aan qalbi lahayn waxa ku tilmaamo ma aqaanimo damiir diin xaasidnimo qalbi xumo yani wax kasto la aan isku darsaday markay dhashan ilaaha bixiyo gabar ibil wuxuu yahay qofka waxaas sheegay kulli ani ma ogi marka dhashan ilaaha bixiyo qof walaalka ina qalbigiisa ugu jabisidina kulli wax fiican ma kulli ani ahaan waa ka xumaad aad ugu xumaad walaashii qaaladana waxa dhilay waxaas niidada iska gelinin dal ilaaha haay qof bin aadan wuxuu haay malahan qofkaasna kale qof iska cadowtinimo ku dhahay ama xaasidnimo niyada ka jabi maadaama hadda nolol cusub sameysatay inuu qalqal galiilo rabo inay dhalays inay dhalan intuu ku ogaaday teeda kale qof dhashi oo xilli oo ma dhasho la dhaho gaarta ma baab gabar yar waa nolosheeda hadda bilaabatay inay hadda diyaar u tahay inay dhasho in kale adi maxaa ka ogtaa qorsheeda ma ogtaa qadarta ilaahay ma ogtaa ilaahay ma ugu soo warantay oraya qoyo ummadan ilaahay iska hadalka mararka qaar meel xun uu ka gelina mugta adi hadalka dheest qofka intoo wax uu dhibi karaa intoo yani dhibaato u gaarsiin karaa qalbigiisa muxuu ku soo kordhi karaa maxaa ka ogtahay inteeda kale ma dhasho markaa dheesid adi dhash ma heesa adiga saas u hadlaayo inaad dhalaysa in kale maxaa ka ogtahay wiili gabar inaad hadaa tahay haddii aad dhashayn oolaada ilaaha ku siiyey inaa lagaa qaada eber lagaa soo istaaji karaa hadaa leedahayne haddaada leen inaad dhali doonto wax ma ka ogid marka hadalada iska hadalka ma fiicno maxaaba laabo ama khayr ku hadal ama iska aamusa leh maahano falyaqul khayr oo liyaskum marka hadaa khayr ku hadal ama iska aamus marka hadaaba wax fiican qofku u sheegi karno niyadiisa wax dejinaa inaan niyadiisa dhaawacay qalad waa teeda kale qofku markuu hadda nolol sameystay dadka tooshka daba qaataan xaasidnimo miyaa ma ogi isku quurid la'aan miyaa ma ogi marka gabdhaha qalbigooda in la dhaawaco khalad waa kule wixii dhahay inay gabartaa xataa waa laga yaabaa gabar inay tahay xataa waa laga yaabaa maxaa yeelay gabdhaha ayaamahan ay kale toosh iska daba qaataan badanaa moogtahay marka gabar inay u damqato gabar inay maxaa la u istaagto ayaa wax adduunka laga yaqaan marka ani ahaan gabarnimo ahaana ugu gubtay maadaama gabar walaashii tahay youtuber tahay fanaanada wax walba ee tahay anyway waa gabar walaashii oo Soomaaliyeed marka sasa ugu gubtay aan walaah waa ka xumaad kulli qof dhan inuu meel oo la soo istaago ma dhashaa tahay maxaa lagu guursaday baba subxaan ani xaasidnimo qayb kamid waa dhihi karaa walaah wax kale ma baa qofkaas inuu niyada ka dilo loo rabo waxaasna waxa waaye u joojina qadarta ilaaha haaydo ilaah kuugu talagal waa dhalay doos ilaah kuugu talagalina ma dhalays mar walba qof qadarta ilaah ku qanacsan alxamdulillah do ilaah siina ma sha Allah alxamdulillah hadoos ilaah siina rabbil alamin ilaaha ugu talagal laakiin adi ina afkaada qofku xun qalbigiisa ugu dhaawacdid waa laga fiican yahay oo yani mugdi ka gelisid noloshiisa badan oo ma sha Allah fiicana ka buuxdo 10 qof oo negative waxa ka badan 9 qof ee positive ka badan markay maxal dhijir qof ku ciiday calooshiisu ku tuslaa wax ma ku dhibin yani wax uu ku qabo ku tus qofkaas markay heerka xaasidnimo ee nolosha ka gaarta ama noloshaada uu ka xun yahay ama cuqdada uu qabo ama xaasidnimada ku jirto ama daciifnimada iimaanka kaga jirto ama diin la'aanta yani wax kasta ahaato wixii ku jiro qalbigiisa isku tusooyaalay bis adi wax ma ka haleeno because as gacantiisa wax ma ku jirto wax walba ilaaha haayo gacantiisa wax ku jiro malaha wax kasta ilaaha haayo markaas wax uu ka bedeli karo ma jirto maho marka walaahi bila anaka qalbiga hadalka wanaagsan qalbigu uroon yahay seeta sidriga uroon tahay wax isasiis maaha adduunka ma fahamteen marka qofka walaalka hadal wanaagsan inta uu awoodid hadal xun maxaa ku geenaayo hadalkaaga wanaagsan farxad u gelina qofka la hadalkaada xun uu niyad jabinaya qofka niyad u dhisa hadalka xunna niyad uu ka jabinaa laakiin waxa uu ma qaban kartaa hadal wanaagsan wax kuma sii kartaa hadal xun wax ma uu qaadi kartid marka inta wadaada waxba ku qaban karin wanaag kale iska xigtido because wanaaga wax ka fiican jirin ba adduunka ma ho ولا بلا أنا كل هذا أو حماضي قبرني ما قدام قذي بني آدمي ما قدام قذي إسلامي ما قدام قذي مركو حواي
waxaan ani ku tali lahay wiil iyo gabar waxaa tihiinba qof walba in qofka walaalkiisa niyadiisa oo dhooro khaasatan gabdhaha qalbigooda la ilaaliyo gabdhaha waa iska qalbi jilacsan yihiin qalbigooda aad u daciif u yahay way qalbi jilacsan gabdhaha qalbigooda in la ilaaliyo anaka hadaa gabdhana inaan istaageerno inaan isgarab siino inaa yacni wax walba oo negative yacni iskaga istaagno oo iska garab istaagno qof kale gabadha kale walaasheeni niyadeeda ilaalin niyadeeda dhisno waa wax aad u fiican waana wax waajib marka aan taas ka hadlayo asxaabe waa kaasa qalbiga la isku dhiso qof walba qofka kale walaalkiis niyada u dhiso garab istaag qaasatan gabdhaha aniga maanta videoga waxa igu kalif inaan ka hadlo oo shucuurteedu ku muujiyo waa gabarnimo waa islaanimo waa bini'aadanimo waa damiirta gabarnimo inaan gabar walaashay qalbigeeda la dhaawicin ma ogoli mana ogolaa dooni aan saa jeclahay aan qof walba la jeclahay adina saa walaasha la jeceshaa saa ada isla jeceshaa saa naftaada la jeceshaa saa gabadhaada la jeceshaa gabadha kale walaashaan la jeclaa gabar iyo wiil waxaa tahaybo ya bini'aadanimada hadalka wanaagsan waa sadaqo iska sadaqeyso hadalka wanaagsan marka aan isku hiilino aan isku damqano soomaalinimo muslimnimo khaasatan gabdhanimo gabdhaha xagooda kasii tag youtubernimada war waxaan ku dhahay dhinac kasto oo la iskugu damqado oo la iskugu istaago marka waxaan rajeynayaa qofkaasoo inaa ku waana qaado doontid dadka yaalaha ay ku waaniyeen hadaa wax maqleysid waxaan rajeynaa qofkii dambe oo warkaas camaleetii niyadiis ku haaya ama dhihi raba ama dad dhahay inuu iska dhaafo hadduu hore u dhahana oo cafis warsado haddii kalentana ilaahay oo toobad warsado marka insha allah waxaan rajeynayaa inaa hadalka wanaagsan sadaqeysano sadaqa waaye meeshaan wax ma la isku taro hadalka wanaagsan leh la isku caawiyo qalbiga la isku dhiso niyada la isku dhiso la isku duceeyo insha allah gabadhaasna waxaa dhihi lahaa iska cafi walaalay qof wax kuu haaya meeshaan ma jirto iska cafi insha allah yaa iska cafi because wiil gabar wuxuu yahaybo anina waxaa dhihi lahaa ilaahay oolaad khayr qabto baaryaal ha ku siiyo adi iyo inta muslin oo oolaad haysan inta haysatana ilaahay ha u xifdiyo dhammaantood inta haysana oolaad khayr qabto ilaahay ha ku irsaaqo marka ani waxaa ini kula dardaarmaa dadka walaalahayga inuu niyada la isku dhiso in hadalka wanaagsan sadaqa waa la isku sadaqeysto inaa qof niyada laga dilin wax walba waxaa ilaahay ahaay ma fahamtay marka qalbiga